إنا لله وإنا إليه راجعون waxaa ku dhintay 6 ruux 10 kalena way ku dhaawacmeen roobab khasaare geystay oo ka daay habeenkii xalay ahayd magaalada Dilaa 6 qof ee dhintay ayaa waxaa aas qaran loogu sameeyay magaalada Dilaa waxaana ka soo qayb galay wafdi uu hogaaminayay gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi ahna musharaxa jagada madaxweyne ee xisbigaasi iyo qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada xukuumadda Axmed Siiraanyo 6 qof ee ku geeriyooday daadka ayaa waxay kala ahaayeen Ruun Cabdi Jaamac Kaahiye oo ahayd hooyo dhashay 14 iyo ilmo ay dhashay oo lagu magacaabay Amiin Faysal Xaaji Cali Safiya Qaasin Axmed Ikraan Maxamed Xaaji Cali Warsame iyo 2 qof oo kale oo safar ahaa oo aan la garanayn magacdooda waxaana ilaa hadda la raadinayaa dad safar ahaa oo ka cunteynaya hoteelka ugu weyn Dilaa oo gabi ahaantiisba uu la tagay daadku waa Maxamed Cumar Jaray shabakada caalamiga ee Borama News magaalada Dilaa